ما تصبح أدريس أنا استغفر الله والله إذا يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله إذا رجوا وحياة رجع عن هو بهيسني رجع هو بيسمي هاي مرة تصبح مرة واحد اللي أنه دجالنا حمارها توريجا يورن كأن كل عنه وجهات جهات سيد أصحابها دجال كابن قال لي وحنو ديريجا رج بدن بنا قدام هذا أحمر دين وان لاني واد كل يسين وكل هاي مرة دجالك تصبح لو بحي دجالك تصبح لو بحي حربي جم قالوا ما شاء الله يده عيه مركا صباح وناكسن bal ka waran magaaladan Guradamole iyo deegaankan aad ku noosheyn iyo adiga xawaashaadu. Welcome to Minnesota. haddii aad sideedoo kaleeto socodkaagu u badan yahay safarkaagu waxaad u isticmaali kartaa abka dahabshiil faamilkaaguna waxay lacagta ku helayaan daqiiqada gudahood lacagta ugu horeysa oo ku dirtana waa free. بسم الله الرحمن الرحيم أنيقو مقالة Guradamole كل شيء كو إلا إمك إيان جوجا أي مال وما تجين أي قد سفر مالهاس مرمر لو تجمعوه لكن جريتان هان ما شنبان جوجا أيضا نقول لك أيضا نقول شيء ده ما يقوي حلي قدرت ما حسيتها وحصوصنا يا أيه ده دوا لحدني تدو لحدني تتوسنوا وياه ما مقعبة اللي بحي وهو هل موسى محمود فارح ويا مقعيك مقعوة موسى محمود فارح وياه إن واحد إيجا ورنتا بل ديجان كان محو تاريخ وليه هاي أو أيسن دتك بدي أوجين أما دتك يعني Guradamole هاي نما دع يرتو أيسن أوجين ديجان كان الحالة ديسة نوجور حلقي أدو أتكون على تسيد وهاي مان سيدي ديجان كان هرتوا ديجان أدو في عويان هاي طارقة بدن بولي هاي ديجان كان حلقي هوري وحويا وحا كجري ودن كان ودن اسكدر أبوها ودن هضن أبوها دور joogto dhamaanteed way ku nooleed maroodiga ku noolaa wiisha baasha la yiraahdo ku nooleed iminka labada way zuuleen de xilligii shigir mangista ka horow dargida yaa waxa weeye waa la gadanayay maroodiga ilkiisa la gadanayay waa la laayay iyo wiishaba labada way zuuleen iminka laakiin ugaadhii kala way joogtaa maroodi maxay ahayd gerigi biciidkii goodirkii wax walba ugaadh iminka way joogaan xaggaana taariikhdu saasay ka tahay dhanka kale markii loo celiyo wadankan wuxuu hodan ku yahay wax walba beerta hodan buu ku yahay malabku hodan ku yahay haddii la yidhaah xamagta kala nooca ah ee tafooxa iyo tacadaada ayuu hodan ku yahay wadanka marka saasuu yahay waa wadan dhirtiisu ayna nabad guurin oo dhirtiisu ay joogto wey waana celinaa oo lama jaro aad baa meelaha kale ayaan ku tusaale qaadanay ee dhirta laga baabiyey sidii roob la-aanta uga jirto sidaa darteed dhirta lama jiro waxa weeyaan waa meel hodol ah oo waxa weeyaan saddexda caanaha macaan geela iyo ariga iyo lo-daba ay joogaan wey markaan sii dhaafo wuxuu leeyahay webiyaal buu leeyahay wadankan webigan wilmaa dumaal baa la yidhaa dumaal baa la yidhaa webi kaleoo xaggaasna weelmaal baa la yidhaa way isku daraan markay socdaan waxaa iminka waxay ku darayaan webi weyne webiga la yidhaha Ganaale ay isku daraan webi weyne isla noqdaan sidaabay iyay yihiin marka wadankan uu ballaaran yahay aad buu u ballaaran yahay xagga qarsaa duulaan xuduud kala leenahay xagga fiiltu gobolka liibaan un baan nahay laakiin xarunta
yaan xuduud kala leenahay xaggan kale waxaan xuduud kala leenahay jirati xaggan deegaanka soomaalida xaggan kale dee goora baqaqsa meesha la yidhaha soo marteen baan haddana xuduud kala leenahay dhankan oromiyana waa sida oo kale degmooyin fara badan baan xuduud kala leenahay bartamaha ayaan ku jiraa waa meel aada u ballaaran weeyo waa dhul weyn weeyaan haddii la dhex qaado gobol keliya lama dhaheene 2 gobol 3 gobol dhul u qalmo weeye dhulkan marka sidaas ay ku fadhida degmada Guradhaamo ayay ku fadhidaa imisa kilomitir way guud ahaan waxa weeyaan halkan hadda waxa naga koreeyo 2 qamalo oo waaweyn oo hodona beeraha ku yaal iyo biyaha marayo iyo wax laga faa'iideystay haddii aad aragto dee waxaad leedahay waa maxay kaligeed bay degmo u qalamtaa iyo ka weyn tahayba qabaleyaashaas way naga fog yihiin marka horumar baa ka jiro biyogelin baa dowlad deegaanka iyay u sameeyeen beeraha lagu waraabiyo muuskii baabaygii jaadkii wax walba cambihii baa saa u lalmado beerihiina way ka baxaan waa meel waxa weeyaan aad muhiim u ah way naga koreysaa markii halkaa laga soo bilaabo marka dheerarkeeda markii la yidhaha dheerar markii la yidhaha waxa weeyaan dee 400 oo kilomitir ayay dheerarkeedu dhan yahay dheerarkeedu ballarkeeduna 300 iyo wax weeyaan saasay u weyn tahay degmadanu marka intaas way isku fadhidaa dhirteedii beerteedii nimcadeedii khayraadkeedii kala gedisnaa intaba way leedahay way ka siman tahay marka saasay tahay taa markaan ka gudbo degmadanu taariikh dheer bay leedahay waxyaalo badan baa gumaysigii ilaa mililiq xayli silaasay ilaa dargidii dhibaatooyin badan baa naga soo gaadhay dhibaatooyin badan waxaa ka mid ahaa deegaankan horta annaga soomaalida shiritaam baa la dhihi jiray xamaaradu ay dhihi soomaaliya shiritaamo way ku caayi jirtay sidaa darteed waynala dagaalamaysay dhibaato badan bay noo geysatay xilligii mililig ilaa xayli silaasay dhibaatay noo geysay dhibaatadaas markay dadkii laaysay nimanka la yidhaha isaaq ee hadda meeshaa degan dalloomana meesha la yidhaha ilaa 400 oo guri ugu yaraan bay ku lahaayeen dalloomana oromiya dhexdeeda dadkii la barakaciyey weeye markaas xilli silaasay aa joogay wadanka yaa ka talinayey boqor xilli silaasay yaa ka talinayey dadkaas marka way ka barakaceen halkaas maadaama heebtii dadka xagga hargeysiya meesha ay degan yihiin meeshaasay u qaxeen guryahoodii sidii baa lagu beliliqaystay waa la laayey annagu hadda meel kale oon u heeb sheegano u kacno reerkan guraha ma jirin sidaas baan meesha ugu nagaadnay marka 61 ruux webigaasa intii laisku xiday lagu riday wixii kale goobaay lagu xiday way ku dhammaadeen ka bacdi 60 nin baa yaa webiga lagu riday 61 nin oo yaa ku ridaya kolkaa waxaa ku riday dee waa xukuumaddii markaa meesha ka talinaysa xayli silaasi markaa ka bacdi waa la tashtay waxaa la yidhi maxaanu iska laynaysaa markaa way iska laanaysaa xilligaa waa la tashtay sidan ku noolaan mayno maxaanu samaynaa baa la yidhi saaxiibayaal safarkaanagii aan ugu baxnay gobolada deegaanka qaybo ka mid ah ee ahaa dhaqan ururinta iyo kurgulidda nolosha dadka deegaanka waxaa safarkaasi fududaysay oo qaybta ugu weyn ka qaadatay shirkadda Ibir Cafe waxa ay qabataa lacagtaadaad ku kaydsan kartaa lacagtaadaad ku dirsan kartaa kumaalla way leedahay dhigashana way leedahay fadlan la soo deg abka Ibir Cafe nambarkaaga isku xidho iyo bangigaaga si ay kugu noqoto Ibir Plus macmiil la soo deg abka Ibir Cafe aniguba way ii degsan tahay
rag baa la abaabulay raggii markaa waxgaradka ahaa ilaa 7 nin صح yaa meesha laga diray صح halkaas Ugandhay ka galeen halkaasay mareen Kismaayay ka galeen halkaasay Soomaaliya ka galeen aas-aaskii marka jabhadan wadanka maxay ahayd lagu waxay xilligaas ayay ahayd jabhadii Soomaali hadda noqotay haddii alla yiraahdo Soomaali galbeed Soomaali aboo noqotay aas-aaskeeda halkaas uu ka bilowday haye annaga aboo u ahayn haye ragga markaa meesha ka tagay Dhicis Faarax Geedi Cadow ninka la yiraahdo Cabdilaahi Magan Nuur Xareed Maxamed Saalax raggaasay ahaayeen raggii la diray halkaasay ka galeen raggaa ninna kama noolo maanta ninna kama noolo maba soo dhowaanin badee xilli hore haye marka xilligaas waxaa axmaaradii markay dadka laasay dad baa duur ka galay oo waxa weeyaan axmaaradii laanhay sidaasay dadkii haddana u sii laaysay markaa unbaa noogu dambeysay annagu dad duurka nooga baxo oo haddii alla yidhaha shifto noqdo ama halgan sameeyo xilligaa wax taariikha lama qoreynin duurkay u baxeen way laayeen adeerkay baa ka mid ahaa Maxamed Faarax yaa ka mid ahaa Allah yarxam halgankii horta halkaasuu ka bilowday haye halgankii halkaasuu ka bilowday wuu soo socday oo xilli silaasi ugu dhacay dargi baa u dambeysay raggii aad u dirteen xamar jabhadda labadii jabhadood ee Soomaali Abuu iyo Soomaali Galbeed kala ahaa idinku Soomaali jabhaddii Soomaali Abuu baad deegaankan ahaa haa maadaama Oromo u badan tahay hay ay Oromo u badan tahay wadanka Soomaali Abuu yaa lagu soo magacaabay Soomaali Abuu marka la yiraahdo deegaanka inta la isku oran jiray xagguu ka soo rogmayay deegaanka intiisa kale nagu intee kaga jiray waxaan kaga jiray Soomaali Abuu gobolkaas Daawo laga soo bilaabo ilaa halka nageela lagu mariyo xaggan looga soo celiyo dee aagan baari xaggan looga soo celiyo baalidan lagu celiyo Soomaali Abuu halkaas goday wixii ka xagga ilaa dirir dhabo ilaa Naazireed Soomaali galbeed baa markaas ka halgamaysay saasay labada jabhadood ahaayeen faydayna isku hayeen waxaana aabbo u ahaa ee jabhadda aas-aasay waa halgankay reerkan uu lahaa wey taariikhdaa dheer ayuu lahaa reerkan markii laga soo gudbay wixii ay dhammaadeen dargidii ay kacday waxaa soo galay Oromo 5 waxa weeyaan qabiil bay marka Oromo ahayd nimankan OBDA la yidhaha iminkaba dalka hayee barwaaqa noqday nimankan la yidhaha Tukujuma nimankan la yidhaha Oromo Islaamiya OLF ayaa marka ayaa isku soo hadhay ninba wuxuu la soo baxay marka magaca jabhadeed annaga markaas waxa ugu toogroonaa ugu xoog badnaa OLF markay imaaday waxay tiri nimankan gure lama dooran karo mana dooran karaan waxna ma dooran karaan lamana dooran karo masaan bay noqotay haa hadday saa noqotay maxaanu sameynaa dee kol haddii saana la yidhi waa inaan ka dhiidhinno waa inaan Soomaalida meeshay joogta raadin meeshana laga baxay goday baa markaa xarunta maamulka deegaanka Soomaalida ayuu ahaa goday baan tagnay baabuur ma jirin xilligaas baabuur ma jirin lug baan ku tagnay goday Soomaali saasaan ugu darsannay annagaa raadinay nama aynan soo raadinin xilligii kale ee loo guuray jigjigana sidoo kale ahayd halka waan ka lugeynay jigjigaan tagnay lug baan kaga soo baxnay waxaan soo maray haddii alla yidhaha fiiq gobolka fiiq baan soo maray dundumacad halkaa geeldoox baan ka soo goonnay halkan baan salaxaadka soo maray halkan baan
yaa nimid oo lug baad ku imaateen lug baan ku imaan meeqa beri bay qaadatay lugta safarkaasi haddee wax badan bay qaadatay way socotay raggii markaas lugta ku socday ee halgan ka raadiyey rashiid ducaale sanyariyaa ka mid ah allahu naxariisto wuu dhintay sidaasaan marka halgankanagu saasuu ahaa sidaabaan soomaali wax ugu darsannay soomaali jecel annagoo meeshii aan joognay oromiya ka tirsaneen deegaankan haddee markaa deganeen deegaanka oromiya ay lahayd deganeen soomaali jecel baan meeshaas intaan ka dhiidhinay iyaan tagnay laakiin ma aynan noo faa'idin sidii annaga aan u jecleen ma aysan noqonin soomaalidu dee 11 madaxweyno may ka badneed 11 madaxweynaha waddankan ka talisay dee iminka wixii meesha yimid ee arkay ee dadkan arkay waxa weeyaan waxay ahayd mustafa madaxweynaha mustafa unbaa yimid khayr allaha siiyo waan u duceynay asaga iyaan arkay kabacdi unbaa wixii horumar ahoo iminkan aanu heli karo dowladdu waxay noo qabatay unbaan helay intii ka horeyso waxba ma aanaan helin waan dulmaneen aad baan u rafaadsaneen alxamdulilahi rabbi alcaalamiin mustafa khayr allaha siiyo iminkan dad jiraan nahay degmooyin leh gobol leh baan hadda nahay aad baan soomaalinimaduna way naga go-an tahay dee waddanka gumaysigii markii axmaaradu ay joogtay wax kaleba lama sheegan karin soomaalida waddankan haddee 38 ka qabiil ee soomaalidu ka kooban waddanka way degaan baali iyo halkaas iyo halka annagunbaa la magax bacnimooyin inta kale sidii bay u qarsoon yihiin sidii bay u degan yihiin dadka soomaalida deegaanadan idinku hareysan degan ee oromiya xaggeeda la yaala yaa ka mid ah dee dad badan baa joogo aye wax meel ku aruursan oo meel ku aruursan oo hadda waa ree hebel laleeyahay ma jiraan sax way ku kala faafsan yihiin aye garaa degan gara wuu degan yahay waxaan deganeen ma jiraan soomaali oo dhan way degan tahay nimankan marka xabadda aad isku ridaysaan hadda aad dhinaca isku haysaan waa niman soomaali oromoobay sooma sidaa wey nimankaas sidaa wey marka alxamdulilahi rabbi alcaalamiin annagu maadaama feedh aan ku helna dee deegaankii soomaalida ciribkii dambana aan ugu jiro dee meeshan adhisababa jigjiga intay u jirta oo kilomitr waa la yaqaan goday intay u jirta waa la yaqaan hargeelle intay u jirta waa la yaqaan annagoo 540 kilomitr bay noo jirta adhisababa 450 kilomitr 450 kilomitr yaa adhisababa noo jirta dee ciribtii baan ku naal marka soomaalinimo sidaasaan waddankii yaan meeshaan joognay ugu mitidnay ugu adkaanay haddana haddii alla yidhaahdo soomaalidu bay nagu aragtay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahadle horta waa sidaas annagu taariikhdeennu sidaa weeyo intaa waa intii deegaanka waa intii deegaanka adigoo ahaantaa maadaama nin hadda 67 jiraad deegaankana ku koray wax badan baa dabcan u soo joogtay maxaa taariikhoo kuu qarsoon adiga halgankii deegaankan adu maxaad ka qayb qaadatay halgankii deegaanka waan ka qayb qaatay horta jabhadda markii la aas-aasay jabhaddu soo noqotay ee waddanka lasoo galay dee soomaalidu xaggaana naasireed baa la tagay meeshan haardiim la yidhaa meelahaasaa la tagay naasireed baa yaa la galay halgankii axmaarada lagu kiciyey intaanan fashilmin oo haddee ruushkiiyo kuuba aysan aynan dib nooga celinin 77kii xilliga ayada anigu waxa weeyaan waddankan jabhaddii yimaaday waxa weeyaan halgankii macal soomaalidii nin gaashaan la dhaxaa oo cumar cabdalla la yidhaa yaa waddan ka yimid oo sirdoona ninkaas baan staff u noqday halka ayaan ka raacay waan badneen hawaasa lug baan ku tagnay
walda amaan ninka la yidhaha barasaafka ka ahaa raggii soo qabtay baan ku jiray dahabkii iyo wixii ay hayeen ka soo raray baan ahaa taariikhdaas saasay ahayd halkaasaanu maray waxaan ka baxnay meesha la yidhaahdo halkaanu ka baxnay waxaan maray daloomana hangeeti waan maray nasabow meesha la yidhaha baan maray magaalo weyn warqu magaalo la yidhaha baan sii maray nageeli caruusi magaalo la yidhaha baan sii maray halkaasaan yaan ka gallay hawaaso waa la yaqaan ninkii dhulkaa maray wandhoganad baan halkaa ka gallay halkaasaan sidaamo yaan ka tagnay haddii alla yidhaha meeshan magaalo madaxda intaasoo dhan marka ma ciidanka soomaaliya iyo waxaa joogay jabhaddii haa jabhadda unbaa u badneed laakiin rag adu aqoonyaana oo sirdoonna ah oo haddana xeeladda wax loo maray xeeladda meelo loo maray aqoonaabaa jiray oo lasoo tababaray oo aad loo tababaray raggaasunbaa ku jiri laakiin inta kale waa jabhaddii waddanka unbay ahayd marka anigu taariikhdaas yaan ku leeyahay waan usoo dahabkii xageed geyseen kolka dahabkii soomaaliya xaggaasaa loo raray xaggaasaa loo raray tee dhanaa dahabka dee waa wuu badnaa waa wuxuun hadee gaadiid laguma reereyna borsad buux ani qudhigaygu ninkaas gaashaanlea dhaxa waxaan u waday borsad dahaba meeshii baan la geeyey marka xilligaas annagoo aradii dee saasay aheedoo aakhirkii dambe waxaanoo dahabkii lahayd dhulkii la dhexgalay aradii ay xorowday yaa ka noqodii yay dhacday ka noqodii baa dhacday kabacdi markii dahabka meesha aan geynay haddana waan soo noqday anigu ciidankii cabdilaahi yuusuf liiban buu markaa joogay nageyle ciidankaasaan haddana ku biiray kaasaan la socday annaga oo nageelo meesha layidha hadda dhiikaasuuf buu saldhigga nagu ah halkaa markaan dhaafnay nageelaa lasoo leeyahay dool carab kabacdi hal maalin baa le ka noqdaay sidii baa waddanka looga noqday de waa kii afgembigii dhicisoobay cabdilaahi yusufi caradii uu ka qaaday waa kii de dowladdiiba markaas yaad baray in la afgembiya la isku dayay haddii alay cabdilaahi yusuf iyo nimankii haddii alay cumar xaaji masali iyo nimankii haddii la saraakiisha waa kay afgembi sameeyeen arrintaasay ka noqo iyadoo haddii xorowday oo etoobiya la xoreeyey oo ka kale naazireed joogo ka kalena xaggan dee ilaa bahashii la joogo hawaaso bay ka noqdaydii dhacday caradaasay marka afgembiga ayay u sameeyeen marka kolley laguma guuleysan haddana waa uun la qabtay xaaladii dee siday u socday dee siyaad barra waa ka waddanka kaga baxay saasay ahayd taasna saasaan marka qaybihii aan ka soo qayb qaatay weeyaan maasha allah waaya maxaa kalooda inoogu dari lahayd barnaamijka kolley wax lagu daro way iska buuxaan wax badan oo lagu daro waxaasoo dhan sheekooyinkii taariikhaha noo raaci wax badan oo lagu daro way iska jiraan kolley annagu markaad waxaad ka helaysaa qalab elektroonig oo tayo leh sida moobilada talaagadaha tiifiyada iyo weliba dhammaan accessories-ka noocyadooda kala duwan waxaan iyaguna meesha ka maqnayn qalabkii jiimka xarumaha kala duwan sida jijiga Itoobiya iyo weliba branchada kala duwan ee Hargeysa taariikh dheer baanu lahayn xilligaa boqor Meliliq markuu joogay dagaalo fara badan baanu galnay dagaalkii tusbaxa la yidhaha xarbiga magaaluu ka dhacay tusbax laa ilaaha ila allah tusbaxa yaa lagu dagaalamay meesha rag badan oo ilaa dhowr kun oo nin abaa nagaga dhintay sidee tusbaxa loogu dagaalamayay waxa weeyaan haddii axmaaradii halla jihaadaa la yidhi jihaad weeyaa la yidhi qorina lama haysto hal qori baa la haystaa iyo waran iyo waxyaas marka axmaaradii kolkii la baabi'iyey waxaa la yidhi nimanku waa idin saxreene qoriga afkiisa ku kaadiya axmaaroy qorigii afkaa laga kaasiyey sixirkii wuu ka furmay kabacdi bay dadka nagi laayeen marka hore miyaa la sixray adigu ma tireen
marka waxaad leedahay dagaalka tusbaxu ma tusbaxa la ridahayo oo ay dadku shahaadanayaan leeyahay shahaadadii baa lagu galay dagaalka dagaalka lagu xabad laakiin lama ridaynin ba xabad hadee waa halkalyaal u ahaa ciidanka dagaalka galay intay leekaayeen ciidanku dee maxaa waxa weeyaan meesha rag badan oo reerkana deegaankana oo markaa waxba ka hadhin oo fir go-ay baa jira oo aan hadda ruuxna ka jooginba qabiiley ruuxna ka joogin qabiil hoosaadkii qabiiley ruuxna ka joogin baa jira oo dagaalka ku madhay oo la laayay waxaan rabaa inaan weli dadku u xaqiijiyo korkaynu ka nidh moogta dagaalka tusbaxa baan rabaa inaan faahfaahino sidee tusbax loogu galay yani waxaa ka wadaa ma tusbax baad ridaysana saakfurullah baad lahaydeen iyo allahu akbar baad lahaydeen raggu waxay ahaayeen rag aan hub haysanin bay ahaayeen marka tusbax marka waxaa leeyahay anu dagaalamna xamaaraha tooriga iyo waranka aan ku laadno waa jihaad sidii asxaabaha dagaalkaa baan gallay waxaanoo dheerigaa rag badan baa nagaga dhammaaday axmaradiina waan laadnay waad ku layseen waan ku lahaynay marka dagaalkii tusbaxa loo bixiyey xarbiga magaalo meesha la yidhaah ayay ahayd marka way jiraan taariikho dheer baa jiro maxaa kale waxaa kale oo jiro xilligii hore xilligaas waxaanu dagaalamaynay nimanka la yidhaha booran baanu dagaalamaynay boorantu waxay ahayd ragga markay disho dee waxay ka gooneysay qoorahay ka gooneysay guskay ka gooneysay xilligii dambe anaguna barannay anaguna ka soo goonnay dee waa caddeen yacnaha taas waxa weeyaan waxay ka dhigan tahay libaaxaa la raadin jiray libaaxa marka ninka dilo wuxuu ka soo goon jiray dabada seentuu ka soo goon jiray ama wuxuu ka soo goon yahay dhegaha inuu dilay sidii loo caddeeyo sidaa darteed baa marka dagaalkaa noocaas ana xaggaa buu naga haystay marka waxay idinku samayn jireen baa idinkuna ku samayseen anaguna ku samaynay akhirkii dambe waanu isdhiceynay xoolaha laga soo dhexayay ayaguna wayna dhexayeen laakiin xagga dhaca annaga ayaa u badneed aakhirkii dambe ayagu haddee orome iyo wixii iyo waxaa oo dhan bay soo kaxaysatay meesha la yidhaahdo way aad bay noo jilcisay meel gaari la yidhahdo iminka naga hooseyso oo buur gubbadeedu bannaan meelaha laga fuulana meelo kooban una wadadeedu meelo koobana iyaa marka waxay reerkii oo dhan iyo isugu tagay gubbada way soo duushay waa la ooday markay gashay oo xarootay oo dadkii laan ku bilowday iyaa meelihii ay ka fuushay waddada ahayd iyaa la ooday waa la ooday markii la ooday waa lagu bilaabay marka afka oromada ayay marka ku hadashay colowbow celi guraa colow badi hagarsuu gaari badi haadhi ilmato kijaa badi saasay tiri macnaheedu waxa weeyo markay dhammaatay habartii wiil mida dhashayey wiilkii meeshaa lagu dilay dee wiil kale mu u hadhay habartii wiil mida dhashayey maantaad bacday maanta xagarkii lagu ooday gaariyow waxa weeyaan adiguna dhibaataa ku gaadho ilaan xagarkii baa hagarsuu gaari badi xagarkii gaariyowba guraa colow badi dee colowbow celi unbaa la leeyahay marka wixiiba guraa colow bay tiri xaaladaana halkaasay nagu martay wadankan markii hore waxaa laga kiciyey qoladaa booranta ayaa laga kiciyey ceelasheedii iyo tusmooyinkeedii iyo wixiibaa ku yaallo wadanka wax dheer wax weyn baan usoo maray wax laga sheekeyn karo ma aha waan garta alxamdulilahi rabbilcaalamiin maanta gacantaan ku haynaa annagoo soomaali a hadduu mililig yahay iyo hadday xeeli silaasay tahay iyo hadduu dargi yahay xeelo maryan uu yahay magisto xeelo maryan yahay wixii dhaqankanagii iyo jiritaankanagii waa la suulin waayey
jiritaankanagii soomaalinimo baan ku joognaa alxamdulilahi rabbi alcaalamiin maanta soomaalida kale waa un dee maxaanku ilaayay way maqli jireen waxa kale oo intaa dheer waxaa la yidhi gobolkan markii la dhisayey qoladan walaalaheena ee hadda barwaaqaan isla nahay waxay yidheen meel markii la jiibsada madaxa annagana soo gaadhi lugaha haddii la fidsadana haddii alla yidhaahdo meeshan lugaha markii la fidsadana an meelba gaadhin dee nin saa u jiibsaday madaxiisiina annagana gaadhay lugihiisiina ay hargeelaba gaadhin gobol say u noqon bay yidheen ma noqon karto maya jirati aynan gaadhin gobol ma noqon karto ilaa heerkaa yay halgameen soomaalida marka waxaan ugu mahad celinaynaa meeshiisaana la yidhi inay maxay aheeday madax annagu uu ayada gaadhaynin lugaha annaguna meel dhow uun ay ku ekaanayaan inaynan meeshu ahayn oo meel gobol a tahay meel gobol u qalamta tahay soomaalidii xaqiijisay yaan u mahad celinaynaa oo madaxweynuhu ugu horeeyo dhul aad u ballaaran weye intaan soo soconay 2 maalin dhexdood dhul aad u ballaaran weye aad u ballaaran dhulku marka dhulka waxaad ka soo marteen daraf wadadan daraf bay ku taal sax dhulka weynadiisa gurdhaamula la yidhi xaggaasuu naga jiraa xaggaabuu naga jiraa dee dhul dhow ma ah dhul dhow ma ah halkaasuu naga jiraa halkaasuu naga jiraa dhulkan xamag dhagaxda dhulka laga dhammayn waaye ee kun baabuur laga raray weye dhulkan buurahan xagga naga jira hadda xamag dhagaxda bahasha la yidhaah meel walba looga yimaaday ilaa kun baabuur dhulka laga raray weye dhulka xamag dhagaxdaa ku badan xamag dhagaxda ku badan meesha laga raray weye ee buurahan oo dhan khayraadku xaggaasna saasuu ka yahay malmalkiibaa hodonka ah marka xamagtii kale ee hediga ayaa hodonka ah dee dhunkaasha waddanka ka baxdaa ka baxda oo libaaxa loo geliyaa hilibka markuu xooluhu dilo dhulkanu dhul aad u fiican wey dhunkaashaasi xoolaha loo geliyaa libaaxa libaax markuu xoolaha cuno dhunkaashaa lasaa loo geliyaa ku dhimanaya ku dhimanaya laakiin libaaxu aad buu ugu badan yahay waddankan geela aad buu u laayaa aad buu ugu badan yahay libaaxu sida dhulkan soomaalida ee kale looga zuuliyey ma aha libaaxii baa fadhiyo halkan waxaana ku kalifay dee dhulkii baa dhir awood ah dhulkii buuro qiley deegaankan xooluhu aad buu ugu badan yahay xasiiba geelo aad buu ugu badan yahay geelan miyaad soo dhacdeen mise weydin dhashay walle haddii dee lasii kaftamo haddii laska kaftamo kaana kama tiro laakiin iminka waa uu annagun baa dhaqanay idinku baa dhaqday dee xilligii hore ee samanu jaahiligii la isdhacayay haddee halkaasi haddii alla geel waxa laga ree cabdillo yaa laga soo dhacay baydha baa laga soo dhacay halkaa iyo haddii alla qudhac joomaa laga soo dhacay marka waa xilligii dee samanu jaahiligii dadka iminka walaal baa naho isma dhacno isma dhacno waxay way zuuleen hadda laakiin xilligaa hore saasay ahayd marka dad waxay uga joogaana kolley la waayi maayo maya waxaan odhan lahayn oo inay gafariin u diri lahaa raggii garanhaya in geelaasi wax ka nool yahay garanahayaanna meeshii laga keenay asalkoodii inay iska celiyaan inay dib u celiyaan horta wax badan baa la celiyey wixii dhodhowaa iminkan nimankan deriska anay ree dhoweed waxa weeyaan iyo ree afgaab baan isku dhoweyn waa la celiyaa iminkaa la celiyaa waa la geeli xilligaa la dhacay waagii hore de diintu dadka aad uma soo waa la celiyaa iminka boqolaan nin ree dhoweed way soo celiyeen geel foofay soo celiyeen annaguna waan sidaa baan u celinaa hadba wixii waanu la ogaado markay taariikhdu saa ahayd gugii heblaayo ama jilaalkii ama deertii ama xagaagii berigaa bil heble ahayd geelii meeshaa laga soo dhacay yaa wax ka lahaa sidaasaa lagu yaahiyaa
aleelahay arrintaa ka shaqeeya adeer si marka waa la celiyaa geelaas si loo celiyo haa waa la celiyaa arrintaa aad uga marka shaqeeya kaa hore isagu xilli buu ahaa haye xilli hore waad ka istaaqfurlaysanaysaan laakiin wixii intii hadda annagu aan joognay raggi xilligaa wax soo dhacayna hadda maba noola ma noolaba maba noola raggaa wuu tegey Allah laakiin intaan nool lahay wixii na soo galay waa la celiyaa xaqiiqata aad baa loo celiyaa arrin fiican wey aakhiradaa ka muhiimsan waa la celiyaa marka sidaa weeyo alxamdulilah adigu intaad nooleed wax ma soo dhacday horta maya ma dhicin ma dhicin deegaanku deegaan iska colaadeed oo xabadeed buu ahaa oo de nin waxaa weeye baarqabahoo de deegaankiisii joogana hadhow xoololaan inuu ahaado waaga ayadaa ma aysan jiraynin marka waxaan is iri odayga adeero ama isaga xoolihii celiyey horta geelisu qaybta ka soo dhacay maya ma dhicin markaas maada soo dhacay adigu waxaad adin reer magaalahoo anigu ma qori dhicin wato oo dagaalamaysa adigu anigu ma dhicin marka sidaa weeyo iminka alxamdulilah rabbil waxbaa la bartay hogaanka deegaanka cabdulqaadir rashiid ducaale halkuu ku dhashay wasiirka maaliyadda federaalka etoobiya axmed sidi halkuu ku dhashay sax deegaanka nimankaa ka soo baxeen wey deegaankanu ayadoo saa ay tahay aad iyo aad ayaa madaxana looga fadhiyey haye laakiin iminka xisbigii barwaaqan ka mid nahay federaalka etoobiyaan qayb ku leenahay dowlad deegaankii baan qayb ku leenahay qaar annagaaba ka talinaba marka sidaa darteed wax baxagooye iyo beylaha iminka ma qabno aad baa u fiican nahay dee halganka nagu laanloon ee soomaali goday barag baa galee gala la yidhi ee dagaalkii sebenkii taarikhdiisana annagaa leh cid walba meel ha sheegto raggii ugu horreeyey soomaaliya tagay aadan caddaa joogay xilligii aadan caddo cabdirashiid uu ka dambeeyey maxamed siyaad ka bareemay raggii meeshaas halganka ka soo aasaasay annaga reerkan wey magacdoodii waa la hayaa raggii ma noolo alla iyo raxmo wixii ay dhaleen unbaa wax ka nool hadda ma noolo laakiin halgan dheer baan u soo maray naf iyo maal baan u horay ilahina waa idinku guulay ilaahay waa nagu guuleeyey joogtaan nabada alxamdulilah rabbi alcaalamiin meeshaan iminka aan joogno raggii halgankaa ku dhammaaday qabridoodii waa kuwan qabridoodii sahal cadaawi iyo aadan geesoodi iyo haddii alla yidhaahdo quulo bariis iyo hebel male meeshan ba qabridooda hadda yaan kor fadhina ilaa 30 nin oo magaaladan ku shahiiday halkan bay qabridoodii ku yaaliin dadkii ehelkoodiina magaaladan bay degan yihiin dadkii markaa ka dhashay waxa weeyaan ninka la yidhaahdo muxuu ahaa gabadha hadda booliiska ka ajigjigo magaceedii dahaba sahal cadaawo aabaheed halkan buu aabaheed halkuu ku dhintay raggii dagaalkaa ku dhintuu ahaa iminkana dowlad deegaanka soomaalida ayay ka tahay boolis gabadhii uu isagu dhalay xilligaa uurku har bay ahayd haddana naag weyn oo iminka marwo ah naag weyn weeye oo hadda da-ah ma joogtaa qurbaha oo ma jeceshahay barashada qur-aanka iyo culumtiisa hab casriga oo online ah adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo haddaba dugsiga casriga ah ee Maka Islamic Online waxaad ka baran kartaa qur-aanka kariimka higaada luqadda carabiga iyo culumta shareecada isqoristu waa ay socotaa fadlan hore u gaadh wixii faahfaahin nagala soo xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda boolis bay ka tahay marka wadankii sidaa ahaa kii dhintay wuu dhintay kii dhintay wixii uu dhalay dee baa wuxuu waalidka u dhintay nacfisanaya ayaa nacfisanaya sax wey nafcigaa rag badan baa ku jiro alxamdulilah rabbialcaalamiin halgankii markii oromadu ay tini mana dooranayna namana dooran hayaan raggii ka lugaya rashiid ducaala sanyaro weeye waa cabdulqaadir rashiid aabihi halkuu ka lugeeyey raggii yacnaha tusaale ahaan baan isaga u leeyahay keligii ma aheen
laakiin xaguu aaday markuu ka liwi halka goday buu lagu tagay waa raggii kilalka waa raggii kililka ha aasaasay wey degmooyinkaana aasaasay degmadana wuxuu ka noqday guddoomiye iminka wuu dhintay allah u naxariiso allah wiilkii uu dhalay xilligaa waxba ma aheenba xilligaa kuwa irgadka ku jiraysa ma ahayn markii dambe la geeyey irgad baa lagayay cabdiqaadir ha irgad buu ka ahaa ayuuba ahaaba iminkana maanta isagaa xukuumaddii ugu sarreysay bahayo marka ilaahay wuu noo abaalguday ilaahay baan ku mahadinaynaa dowlad deegaankana waan ku mahadinaynaa madaxweynayaashii hore ee meesha waxba kama jiraan meeshaan waa meel yaroo laba buuroo dhexdooda oo reer yaroo haddii alla yidhaahdo aheen waxa sii dheer waxa taa sii dheer shir baa la qabtay waa markii dowlad deegaanka la dhisay dhismihiisuna markaas leegadii baan markaa ahayn waxaa weeya waxaa la yidhi nimankan sayde gurdhaamoo laga say degmo u noqon karaan baa layidhi waaba 150 qoys 150 qoys say degmo u noqon karaan baa layidhi yaa dhihi waxaa dhihi nimankii markaa joogay soomaalida ah hadda sidaa uma haya magaciise markuu shirku goday ka dhacayba wuxuu ka dhacay sooma ahayn doolow bay haye rag baa qaracmay oo istaaga ka dhaco naftu ka baxday daahir qajamo iyo ereygaa dartii erigaa darti 150 qoys waa 3 qamalo say ku noqonayaan degmo istaagu ka dhacay daahir qajamo markaas uu naf baxay waa la xabaalay dhibaato badan baana lagu soo mariyey nama ogoleen markaas naloomaba ogoleenba haye maba naloo ogoleenba inaad degmo heshaan xitaa inaan degmo hella xataa 150 waa la yidhi iminka tira koobkii dhacay 19 baa tihiin baa la yidhi 19 dee waxa 19 kun miya 19 kun unbaadba tihiinba iminka baajidka noo soo baxayo wixii 19 kaa unbaa lagu soo yaaba federaalka wixii ka soo bax wixii deegaanku hadda noo xada ma ogi 19 kun dad aad u yar baa marka ladiin qoray dad aad u yar baa naloo qoray dhibaatadaas xaggana laga mariya xaggana way naga haysi xagga kilalka kililka laakiin waa raggii hore waa raggii hore mustafa marka wixii uu naga saaray khayr allah siiyo waan u mahad celinaynaa aad iyo aad baan u taageersannahay aad iyo aad baan u taageersannahay ha jiro oo ha joogaan leenahay raggii hore saasay horta ahaayeen alxamdulilaahi waxa weeya wax jiro lama qarin karo run wey wax jiro lama qarin karo dad jiraan ahayn waana la qariyey nimankan walaalahan deriska ana wayna qariyeen xaggaana waana laga qariyey laakiin qarintii ma noqonin maya xagga rabbi bay ka qornayd xagga rabbi bay ka dhiman buu ahaa wax dhiman bay noo ahayd sax alxamdulilah taariikhahaasaan soo maray alleelahay waayahay adeer waad mahadsan tahay waan kaaga mahad celinaynaa barnaamijkan aad nagala qayb qaadatay goradhaa moole iyo taariikhdeedii si fiican baad nooga jaahil tirtay waxaana rajaynayaa wixii hadda ka dambeeyay deegaanku inay ogaadaan iyo dadka soomaaliyeed in dhul aad u ballaadhan oo baaxad leh oo nimcadiiyo barwaaqadu fadhido oo soomaaliyeed inuu ka soo maqan yahay oo halkan soo jiro dadkuna ay u baahan yahin inay dalxiis ku yimaadaan waan rajaynaya insha allah in la arko aad baad u mahadsantahay wasalaamu calaykum waaleykum salaam waraxmatulah